in asalkii halka uu ahaa oo idinku aad soo baxdeen maxaa yeelay annagu qabrigii xaaji hawiyo baan dhahnaa annaga duq xaaji hawiyo baan dhahnaa horta hawiyaan halkan qiimaha ku beelay ee aan la sheeganaynin ee haddii la sheegto la isku qoslayo xaggaas qabrigiisa waa naqaanaa qabriga xaaji hawiyo waa la yaqaanaa cid kasta garanaysa ayaan dhaweyd bil ka hor oo oromada aan ku jiray wada hadal oo oromadii aan isdagaalay wada hadalka aan ku jiray oo gobolka Hararge la yiraahdo gobolka bariga Hararge bay baabili ka tirsan tahay mas'uulka gobolka wuxuu yidhi xaaji hawiyo qabrigiisa aniga reerkayga meesha qabriga xaaji hawiyo uu ku yaalo halkaas aan ku dhashay buu yidhi waa nin oromaa waliba asalkiisu waa hawiya la leeyahay marka dadkoo dhan baa yaqaana in waqooyiga magaalada baabili meel u jirta 50 kilomitir hawiye iriir uu ku aasan yahay taa horta waa in la ogaadaa saana loola socdaa sidaa darteed annagu waxaan ku dhahnaa dadka hadda maanta wadanka haysta Itoobiya la wareegay oromada waxa weeye hawiye asalkiisii waa kan halkanay dadkaasi xagga ka tageen oo waxa weeye hawiyahaasna asalkoodu waa halkan ee iyagu maysan iman annagu ma aanan iman iyaga tagay oo dhul balaarsiga sameeyay oo xagga aaday dhulkeeni asalkiisu waa kan waana xaqiiqo weey marka sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay maanta laakiin idinka maadaama badan tihiin oo aad xad dhaafteen ayaad si kala baxdeen annaga waxa isku keen haya maadaama aan meesha ku yarnahay waxa weeye waa isjecelnahay nin kasta waa la isgargaaraa badana hawiyaha meesha degan hadda baabili oo kale marka laga soo qaado laba hawiye baa la yiraahdaa laba baa loo kala saaraa hawiye oo dhan uu degan yahay ogow laakiin labay ku kooban yihiin labadu waa gugundhabe iyo karalewe qolooyin badan oo gugundhabe ahayn ayaa gugundhabe ku hoos jira uu raaranuhu ka mid yahay tusaale ahaan qolooyin badan oo karala ahayn ayaa karalaha ku hoos jira uu tusaale ahaan xaskulku ka mid yahay anigu hadda xaskul hawiyaan tusaale ahaan marka xagga joogno laakiin karala ayaan la dhiig baxnaa aanu isku dhaqanahay marka waxa weeye taana waa dhaqan waa sidii aabayaasheen aan ka soo gaarnay waa muqaddas oo lagama guuraan ah weey marka waxaan leeyahay wixii hadda ka hor la yiri baan si adkeynaya waxa loo baahan yahay dareen wadaninimo oo wadankaasna inaad leedihiin horta bal dareema wadankaasi waa wadankiini intaas rabnaa hor fariintaan idin gaarsiinayno wadan baa xagga naga jira dad baa naga jira bari idin soo gurman kara idinkii haddii idin baahdaan idinku aad u gurmanaysaan dad baa idinka maqan dawlad deegaanka meesha ugu shishaysa xadka aan la leenahay cafarta iyo oromada meesha ugu shishaysa waa magaalada Hawaash la yiraahdo Harar iyo Hawaas oo meedaa maqli magaalada Hawaash la yiraahdo waxay u jirtaa Addis Ababa 230 kilomitir uma wax u dhow deegaanka Soomaalida meesha ugu dhow wuxuu u jiraa 30 kilomitir dadka halka degan waa hawiye waa gaaljecel iyo jidlawi waa meesha ugu shishaysa way meel wadada rasmiga aad saba tagto ay marto oo hardiin la yiraahdo weeye hadii maanta dad kale ay deganaan lahaayeen meeshaasi gobol baa laga dhigi lahaa laakiin maadaama uu hawiye degan yahay waa iska qabale ilaa yawmina hada qabale waxay ka dhigan tahay wax degmo ka sii hooseeya xaafad tuulo oo kale ama xaafad degmo markay tahay soo degmadu xaafado ma kala qaybsanto waa xaafad oo kale marka dadkaas waxay u dhaxayaan mar Cafar bay la dagaalamaan mar Oromay la dagaalamaan mar Ciisay la dagaalamaan intay saddexdaaba ka adkaadeen ayay waxa weeye ay meesha ku nool yihiin dhulkoodana haystaan marka anigoo magaca culimada baabili ku hadlaya Soomaaliyeed oo waliba hadda live-ka naga daawanayo oo sawirada aan u direyno
fariinta ay noo soo dhiibeen waxaa weeye midnimada in laga shaqeeyo midnimo in laga shaqeeyo midnimadiina inaad adkeysaan midnimada waddanka la adkeeyo dareenka midnimada ee dhibabka ka dhacaya waddankaas ka dhacaya dhibku markuu halkan ka dhaco waan dareenaa oo aad baan u dhibanaa dhib baan dareenaa dhibku markuu halkaa ka dhaco inaad ogaataan ugu yaraan oo la socotaan oo miidiyaha aad kala socotaan ugu yaraan social media gaar ahaan meesha doonto adoo jooga maanta waad ogaan kartaa baabil maanta maxaa ka dhacay waad ogaan kartaa waad la socon kartaa waad la xidhiidhi kartaa reaction baad ka bixin kartaa waxa weeye adduunka hal ruux baa saas u rogi kara maanta waa qarya waaxida caalamku maanta inaan annagoo hadda qarni الواحد والعشرين joogno waxba iska ogaan weyno waa hurdadeenina lagu ogaa hurdada aan ka toosno hada wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullah dhammaan bulshada walaalaheena ee hawiye ee gowndhabe gaar ahaan beesha gaal jecel oo walaalahay ah oo ugu horeeyo